الرحمن الرحيم. أولا waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay adduunka kaga sugan yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaan, waxaan maanta jeclaysanay inaannu bulshada la wadaagno warbixin yar oo kooban oo ka warbixinaysa wadahadalladii dhowrkay maalmood ee u dambeeyey ka socday magaalada Muqdisho, halkaas oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay shirar isdaba jooga kula yeelanaysay daneeyayaasha iyo saaxiibada bahda mucaaradka qaybahooda kala duwan. wadahadallada oo run ahaantii jawi aad u wanaagsan oo niyad sami iyo mabaadi'da wadaxaajoodka iyo in si wacan laysu dhegaysto afkaaraha laysla rogrogo ku bilaabmay. aad baan u soo dhoweynaynaa inay furmaan. waxaanu iyana u mahad celinaynaa saaxiibada Soomaaliya khaasatan ay ugu horeeyeen dalka Turki iyo wadamada kale iyo safiiradii madasha nagu soo booqday nala qayb qaadanayay. dabcan sida ummadda Soomaaliyeed ay wada ogsoon tahay, dowladda federaalka Soomaaliya sanadadii u dambeeyey waxay aad uga howlanayd sidii looga miro dhalin lahaa hadafka weyn ee aynu qoomiyad ahaan iyo qaran ahaanba u leenahay, oo ah in dalkan ay ka dhacdo doorasho ku salaysan mabaadi'da aasaasiga ah ee qof iyo cod. doorashada dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo la tashanaysa oo kaashanaysa daneeyaasha kala duwan ee dalka waxay gelisay tacab badan sidii loo hirgelin lahaa dhido badana loogu aasi lahaa. dabcan dadaalada wadda ka soo bilaabmaya sharci dejintii, aasaasidii hay-adihii iyo howlgelintii hay-adihii ka shaqayn lahaa doorashada iyo dhaqangelinteedii ka sokow, waxaa barbar socday dadaallo mar walba lagu kabayay doorashada oo ah wadaxaajood iyo wada hadal, iyo in mar walba taladu ay tahay mid ku salaysan dhegaysiga la dhegaysanayo lana dhaqangelinayo doodaha ay qabaan qaybaha kala duwan ee bulshadu. dabcan ma aha markii u horreysay ee ay xukuumaddu la fadhiisato kooxaha mucaaradka ah. in badan oo hadda sanad iyo siyaado ah ayaa wadaxaajood lagu soo jiray, xilliyo kala duwan baa wadaxaajood lagu soo jiray. haddana kuwani waa kuwo daba socda sunnihii ku dhisnaa siyaasad laga wada hadlayo, wax la isweydiinayo, laga doodayo, horena loo soconayo, oo aan ku dhisnayn cunfi iyo dawyo kale oo siyaasadda lagu raadiyo. aad baanu u soo dhoweynaynaa. taa ka sokow waxaa iyana soo dhoweyn mudan intan ay noo bilaabmeen dhowrkii cisho u dambeysay wada hadalladu. waxaan aad u soo dhoweynay in badi, haddii aanan dhammaanba oran, saaxiibada kala duwani ay run ahaantii mabda'a in talada dadka Soomaaliyeed la gaadhsiiyo oo muwaadinka Soomaaliyeed uu xaqna u yeesho in uu waxna doorto lana doorto. mabda'aasi uma eka hadda mid lagu kala lixsan yahay. waa mabda' soo dhoweyn mudan. waxa iyana badi la isla qabaa mabaadi'da dimuqraadiga inay aasaas u tahay waxaa la yidhaahdo hanaanka xisbiyada badan oo doorashada aynu ka hadlaynay. dimuqraadiyaddu dabcan waa mid ku dhisnaan doonta hanaanka xisbiyada badan. iyana waxaad oran kartaa waa mabaadi' inta badan la isla soo dhoweynayo, jiri karaan doodo dadka qaar ay qabi karaan. iyana waxaa barbar socota iyana udub dhexaad kale ah in la helo hanaan maamul oo doorashada lagu maamulayo oo lagu maareynayo oo daah furan oo run ahaantii raalli laga wada yahay. kaasina waa mabda' ay u taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa iyana la isla meel dhigay
oo run ahaantii aad mooddaa in la wada ogol yahay doorashadaasi in ay fursad siiso dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba oo suurtagala oo doorashadu ay ka dhici karto meel walba oo ay doorashadu ka dhici karto duruufaha khaaska ah ee jirana ee kooban ee jiri karana iyana in laysla maareeyo dabcan wadaxaajoodka iyo wadahadalkaasi waxaanu ku rajo weynahay inuu ina gaadhsiiyo dhammaystirka iyo kamiro dhalinta hadafka ay dowladda federaalku muddo dheerba soo waday oo inaga saaraya fadhiidnimadii aynu ku jirnay ama 35kii u dambeysay dalku uu burburay ama ilaa iyo 60 iyo 7dii 8dii 9kii xilliyadii u dambeysay aynu aragno xukuumad Soomaaliyeed ama xildhibaano Soomaaliyeed oo si dimuqraadi ah loo soo doorto waxaanu ku rajo weynahay in doorkan aynu ku guuleysano hadafka asaasiga ah ee ah in la reform gareeyo ama isbeddel lixaad lagu keeno hanaankii dalkan siyaasaddiisu ay ahaan jirtay oo ahayd doorasho dadban oo dalka iyo dadkaba dib u dhigtay oo sidii aynu ugu dhiiranay inaynu dhaqaalaheenna wax ka qabanno amnigeenna qayb lixaad le ka qaadanno duruufaheenna kale u maarayno oo u beddelno in aynu hanaanka ay laysu dooranayana aad u beddelno oo ka dhigno mid dimuqraadi ah oo suurto gelinaya mabda'a ah qof walba iyo codkiisa inuu dhibto dabcan hadafkaasi waa mid u baahan in la iska kaashado waa mid u baahan daneeyayaasha kala duwan oo dhammi inay fikirka raalli ka ahaadaan hore loo socdo ilaa hadda maanan arag annagu cid si cad u diidaysa mabda'a laakiin su'aalo xagga operationska la xiriira iyo dhaqangelinta ayaa la qabaa kuwaasna marka laga wada xaajoodo waa kuwa la xallin karo laakiin in siyaasadda Soomaaliya ay noqoto mid ku dhisan sharciyad mabaadi'da asaasiga dimuqraadiga ah iyo horu socodnimo ayaa run ahaantii aad mooddaa in aad loo soo wada dhaweynay annagu haddaanu nahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda hadda joogta waxaanu mar walba ku khasbannahay oo waajibaadkaygu nafaraya oo dastuurku nafaraya in aanu talada ballaadhino la tashanno qaybaha kala duwan ee bulshada sida ururada haweenka culimada waxgaradka xisbiyada kooxaha mucaaradka ah maamul goboleedyada iyo cid walba oo aragti shariifa oo horu socda ku soo kordhinaysa geedi socodkan dimuqraadiyiinta waxaan ku rajo weynaa dadaallada xukuumaddu ay bilowday qaarna ay wax ka fuleen oo ummadda Soomaaliyeed ay makhraati ka ahayd iyo inta inoo dhimanba isugeynteeda in guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyata aynu halkaa ka heli doonno iyo sumcad iyo magac ay dadka Soomaaliyeed oo dhammaan yeelan doonaan oo aan mar dambe waxa la yidhi fulaxantiima moogane aan mar dambe dadka iyo dalka Soomaaliyeed lagu duri doonin dowladdoodu inaanay ahayn mid dimuqraadi ah oo bulshadu ay soo doorato oo tixgelin mudan dhaliisha dhowr iyo 30 jirsatay in aynu ka gudubno ayaan ku rajo weynahay insha allahu tacaala waxaanu ku niyadsannahay in wada hadalladan bilaabmay ee tacabku uu galay ee saaxiibada Soomaaliyana ay juhdi geliyeen miro dhalkeeda dhawaan la arko hadafkii aynu lahayn ee in dadka la gaadhsiiyo fursad ay ku codeeyaan iyana ay ama lagu doorto qofka aynu gaadhno biidni illaahi kariim saasaynu ku rajo weynahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa bilow waana process aan ku rajo weynahay inay dhowaan soo idlaato wixii soo korana waan la wadaagi doonaa bulshooyinta Soomaaliyeed guul iyo gobonnimo ayaynu u rajaynaynaa qarankeenna dalkeenna iyo dadkeennaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu